ma jiro noolo dhammaystiran oo mid kasta wax ayaa ka dhiman. qof ayaa qurux badan balse aan dabeecad lahayn, qof kale ayaa dabeecad leh balse aan qurux lahayn, qof ayaa wanaag badan balse diinta ka daciif ah, qof ayaa aqoon-yahan ah balse aan habdhaqan wanaagsan lahayn. waayo Allah ayaa ugu talagalay kala dhinaantaas. qof kasta waxaa la rabaa inuu inta ka dhiman mid kale la kaashado oo ay isdhammaystiraan. haddii aad maalin gabar ama wiil isbarataan, haddii ay jiraan wax ka dhiman ha ka cararin oo mid kale ha raadinin. qofkani meesha uu ku xun yahay mooyee waxaa jira meelo kale oo ku wanaagsan yahay. meeshuu ku wanaagsan yahay raadi. markaad hesho meesha uu ku wanaagsan yahay, waxaad awoodda saartaa xallinta meesha uu ku xun yahay inaad dhammaystirto. tusaale, haddii aad gabar barato taas oo aad u qurux badan balse aanan lahayn dabeecad, sidoo kale aan xiriirka Allah ku wanaagsaneyn, ha ka ordin ee isku day inaad dabeecaddeeda aayar u beddesho waxyaalaha ay ku xun tahay. intaad qorto u sheeg oo ku dheh xaggaas ma wanaagsana ee sidaan ayaa wanaagsan. adigoo si caaqilnimo ugu sheegaya waxaad tustaa tusaalooyin wacan oo ay isku beddeli karto. xagga xiriirka Alle ayaa yimid. waxaad isku daydaa inaad barto inay is-asturto. waxaad jadwal u samaysaa xilliyada salaada. mar kastoo salaad waqtigeeda la gaaro, taleefankeeda wac oo dheh salaada u kac, kadibna qur-aanka akhriso. habeenada qaar isku day inaad ugu sheekayso talooyin diini ah oo u soo diyaari. habeenada qaarna isku day inaad adiga qur-aanka barto oo aad wada akhrisataan. ujeedka aan muuqaalkan u soo duubay waxa waaye, haddii uu jiro qof aad ka heshay balse meelaha qaar ku wanaagsanayn, ha ka tegin ee isku day inaad qofkaas adiga dhisto oo sidaa jeceshahay u beddesho. haddii ay dhacdana laga yaabee inaad nolol wadaagtaan ajirna oo Allah kaa siiyo. بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي، توجهت لقبلتي قم يا بلال.